Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ugu horreyn, Allah naga hayo cudurka dunida saameeyay ee corona ama COVID-19. Marka xigta waxaan doonayaa inaan ka hadalno suuratu Taxriim, saddexda aayadood ee ugu dambayso. Saddexdan aayadood waxay isbarbar dhigeen ama tusaale u kala sameeyeen dadka caasiyay Alle, gaar ahaan haweenka, ayagoo la nool ama ku nool meel Alle laga adeecayo lagana jecel yahay. Qaybta labaad waxay ka waramaysaa dad adeecay Alle, gaar ahaan haween, ayagoo la nool ama ku nool meel Alle lagu caasiyay lagana neceb yahay. Ugu horreyn aan ku bilowno kuwa Alle caasiyay. Wuxuu tusaale uga dhigay haweeneydii Nabi Nuux iyo tii Nabi Luut. Wuxuuna yiri Alle: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. labada haween Alle wuxuu ku sheegay inay ahaayeen kuwa la noolaa ama xaas u ahaa laba adoon oo ka mid ah adoomadiisa wanaagsan, laakiin Alle wuxuu sheegay dhaqankooda iyo waxa ay sameynayeen oo ahaa khiyaano iyo caasin Alle. Wuxuu sheegay Alle inay waxba u taraynin saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa ee ay la noolaayeen. Wuxuuna Alle ku yiri gala naarta lana gala kuwa galaayo. Bal aan u imaanno kuwa Alle tusaale uu ooga dhigay dadka wanaagsan. Alle wuxuu yiri asagoo ka warramay: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Aasiya waxay ahayd mid la nool ama ka agdhow kii yiri ana rabbukumul a'la waa Fircoone. Sidaa oo ay tahay waxay tiri Aasiya, Allow guri agtaada iiga dhis, igana badbaadi Fircoon iyo camalkiisa. Waxaa ku xigtay gabadha kaliya ee Quraanka loogu abtiriyay, Maryama bintu Cimraan. Alle wuxuu ku sheegay inay ahayd mid dhowrtay farjigeeda oo wanaajisay, kana mid ahayd kuwa wanaagsan. Ugu dambeyn, wadada xun iyo wadada wanaagsan Alle waa inoo kala cadeeyay, aan raacna midda wanaagsan. Wabillahi tawfiiq.